waqtiyada kamida waxa jirtay inan indhoolada taas oo nacbeed nafteeda maxaa yeelay waa ay indhala'ayd waxa ay nacbeed qof kasta dadkana lama ay kulmi jirin marka laga reebo saaxiibkeed oo ay aad isku jeclaayeen isagu waxa uu ahaa mid aad u caawiya una garab istaaga mar kasta waxa ay u sheegi jirtay gabadhani in haddii marun adduunyada ay arki lahayd iyo waxa ku gadaaman ay isaga isguursan lahaayeen haddaba maalin maalmaha ka mid ah qof ayaa ugu deeqay labadiisii indhood iyada sida oo kalena waxay awood u yeelatay in adduunyada oo dhan ay aragto xataa saaxiibkeed waxa uu weydiiyey iminka awood waxaad u leedahay inaad adduunyada oo dhan aragto ma isguursanaa laakiinse inantu waa ay naxday waxaana ay ka naxday markay aragtay saaxiibkeed inuu indhalaayahay sidoo kale waana ka diiday guurkii saaxiibkeed isagoo ilmaynaya ayuu iskaga tegay waqti kadibna waxa uu soo qoray warqad isagoo oo ku leh fadlan ii ilaali indhahayga tan waa sida ay bini aadamku isku bedelaan markasta oo bini aadamka marxaladda noloshooda ay isbedesho maskaxdooduna waa ay isbedeshaa keliya in yar ayaa xasuusta noloshoodii hore iyo weliba ciddii garab taagnada waqtiyadii adkaa ee xanuunka badnaa